gifted and Safi. Ramadan Mubarak, Holy Records. Ramadan Mubarak, لكل مسلم شعر الذي فيها ينازل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال وولالكن على برعول بلا haddii aad daawada ku cusub tahay channelkayga oo ay tahay markii kugu horeysay please subscribe saar kambalelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya aad iyo aad baad ugu mahadsantahay sidoo kale ka mid noqoshada channelkeena waxaan ku leeyahay thanks waa hagaag waxa jirta maanta aan idin wadaa arrin runtii ka dhacday geeyga Soomaalida oo ah arrin aad u cajiib badan waxa weeye arrintaasi runtii waa gabadh weyn dhalaadahay garanaysaa alla nuurkeedii iyo indhaheeda u soo celiyo iyadoo indhala ayaa waxa ay jeclaatay wiil ay jacayl u qaaday waana indhalaadahay waxna way jeclaatay bal hadda qisadaas ku soo dhawaada ayadoo kooban oo nidii hayo waaye haddaba sheekadaas oo gaaban baan nidii hayaa sheekadaas waxa ay ka soo bilaamatay inantu waxa ay weyn dhalayd inan indhala ay ahayd oo runtii aan waxba arkaynin balse haddana waxay inan dhalinyara oo asxaab dhiirigeliya iyo dad u yimaada oo runtii nolosha ku wehelin jiray markastana madadaalin jiray waqti la qaadan jiray soo booqan jiray mar qaar ka xayn jiray oo runtii oran jirayna mar saaxiibna raacanaga oo marka adigu already waxa ay mar walba dareesiin jireen sidii qof aan indha la'ayn inay tahay oo kale oo markasta waxay dareesiin jireen inay tahay qof indhale oo kale oo dad raaci karto dad la sheekaysan karto dad la noolaan karto cid u tagi karto cid raaci karto cid u iman karto waka ma garatay kadib iyadoo sidii ayaa waxa dhacday markaa in inanta saddex hablood oo aad u saaxiib ahaayeen maalinba mid gurigeeda la geyn jiray heblaay maanta u taginayna maray heblaay maanta u taginayna maray ayaduna aad bay u faraxsanaan jirtay ma sha Allah habla aad u aqli badan bay haayeen inay maxay heeday ay maalinta dambe u tageen hablihii saddexdii hablood mid kamid ah waxa jooga guriga inanta ay u tageen inaan ay waaliyihiin oo runtii aad u sheeka badnaa markaste oo inanta meesha la keeno isna waa meeshii ima jireen way ku sheegaysan jireen inanta way la kaftami jireen ayada laftigeedu way la kaftami jirtay kadib inankii iyo dhaqdhaqaagiisii iyo magaranaysaa sheekadiisii ay inantan si gaar ah u soo jiitay indhaha lahayd marka indhaha la leeyahay qalbiga lama laa fahmaaniyo inkastoo anigu aan aaminsanahay waxay indha arkaan bay ilka gooyaan runtii indhuhu waxay arkaan quruxda badan soo jiita inay qalbiguna jeclaan karo balse haddaba dhagaha ka muhiimsan dhagahaaga wixii naxariis iyo dareen wanaagsan ku muujinaad maqlayso inaad iyagana aad jeclaan karto kana heli karto marka dhagu waa dareen aad u muhiim ah iyaga laftigoodaba marka inankii bay sidii ku jeclaatay way ka heshay balse uu soo badhay kari weeday waxaana ugu soo badhay kari weeday waxa istiri waad dhalaadahay wuxuu kugu falayaa wuxuu kugu doonayaa hadalla sidaas kadib saddexdii hablood mid kamid ah ayay dareenkeedii la wadaagtay u sheegtay hawshii waxay tiri walaalkeeda ku waamine yaani naga hoos bixin isjiijiidii waqti dheer kadib inantii way qarxisay sheekadii labada hablood ay u sheegtay ku tinaabilay inanteeni saaxiibka insaas tahay saaysa ku dhacday inankaas dim garanaysa oo ka inantii kale u yeeran inaan kala dhalatay xiraan inanteeni in saaxiibka ahayd waxay jeclaatay ka heshay inankii baa loo sheegay inankii adigu waxoogaa kadib hablihii baa bush kareeyay waa la isku guuriyay way is jeclaadeen halkii baa adigu runtii nolol khatar ayaa roos cajaayib uu ka dhacay xubiyana sheekadaydu ugu daalinay haw sheekadaasoo runtii malaa waxba waliba ka kala tagtagay la macmacaanaynayo qofkii hayay runtii waan idin keenay doonaa isagana oo runtii Charles ahaa sidii iga sheekeeyay marka anigu looga sheekeeyaan ha laakiin u taagnaade maan hayn arrinta ma garateen marka waxa weeye oo aad aan ula yaabay anigu runtii markii uu igu yiri anku qof indhala ayaa qof jeclaatay wiil jeclaatay way had jeclaaday laakiin Soomaalideenu way aqal xun yihiin inaana yeelayn baan ogahay qofna yeelmay qof indhala iyo qof gacanla iyo qof lugla dhamaantiin wax doonaa wax wada dhamaysa laakiin adduunyada dhamays maaha adduunyadan aynu ku noolnahay baan dhamaysahay ma sha Allah roob badaaya kay nimcada Allah inoo siyaadiyo dhamaantiinba imu ku soo daatay
marka waxaan ka hadlayay oo runtii aan dib ugu soo noqday barnaamijkeeni inaanay adduunyadani aanay dheeli tirnayn marka adduunyadan inaad dadaashood kasii wadbadiso un mooye ma odhan kartid adduunyadii waan wada helay adduunyadu waa 9 10 ma gaadho ma garateen marka waxaan idin leeyahay intii indha qabta intii lixaad qabta dhammaantiinba allihina caabuda alla u toobad keena xumaanta iyo fusuqa iyo dhibaatooyinkeenu iska ilaalino waxyaabaha nimcada ilaahay iyo roobka lagu waayo waxyaabaha colaadda iyo dagaalka inoogu wacan waxa weeye inaan ilaahay usoo noqonay teena caafimaad qabtay lixdood lixaad qabta bala tusaale ahaan nin lugla nin gacan la nin indhala intuba ilaahay bay caabudayaan kursi bay ku fadhiyaan ilaahay ku caabudayaan maxaa adiga markaa ku diiday adoo lixdaadi lixaad qabo quruxda ilaahay ku wada dhameystiray maxaa ku diiday ilaahay caabudo laangarihii baa u taagan curyaankii waxaan ku naafadahay gacanta gooneed baa u taagan kii dhaalaaba baa u taagan kii faalugu helay dhankaas oo dhan baa wada qalalsanaaba ilaahay u taagan oo digriga ilaahay aan ka daarin maxaa adigoo dhamaysa ku diiday ilaahay caabudo waana bil Ramadaan 10 dambe lagu jira waana sii socotaa Ramadaan aynu ka faa'iideysan khayrka iyo wanaaga ay Ramadaantu leedahay ee muddada yar kooban ka harsan tahay aad iyo aad baad u mahadsantahay asxaabta waxna channelkayga waxaan leeyahay please subscribe saara channelka kambalelkana furta saad u noqotaan daawadaha ugu horeeya aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidoo kale kamid noqoshada channelkayga aad baad ugu mahadsantihiin asxaabta ay garab taagan markasta ee dhinacayga joogtay dhiirigelisana waxaan leeyahay iyo fanska ku xiran channelkayga iyo inta ku soo birtay waxaan leeyahay aad iyo aad baan idin jecelahay Soomaali Maxamed meel kasta oo joogtaan waxaan leeyahay one love please subscribe channel kusoo bir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare